سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودايال كسو دوادا برنامج كني عيارها او انكو قادا ديجي دونو خضباءات وحيسا بدن waxaana ka qayb noqonaya sidee madaxweynaha dalka Mareykanka Liverpool ugu hor istaagi kara inay ku guuleysato horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska markeedii ugu horeysay 30 sano kadib. kooxda Bayern Munich oo dhankeeda diyaar u ah hab lacag la'aan ah inay kaga iibiso Jeremy Boateng kooxda Arsenal. kooxda Inter Milan oo banaanka soo dhigtay qiimaha ay ku dalbanayso Christian Eriksen 16 jirkii ka habaabay akademiyada Lamasai ee Barcelona. Dani Olmo oo waqti xaadirka kan banaanka uu soo dhigay jacaylka uu u qabo macallin Ernesto Valverde iyo Barcelona oo diyaar u ah in qiimo badan ay ku qarash garayso. Wilfried Zaha oo ku sii jeeda xagga iyo kooxda Chelsea ka gadaal markii uu iska bedelay wakiilkiisa si uu u helo koox ka ciyaarta tartanka Champions League. riyadiisana sida muuqata waxa u rumayn karta kooxda ka dhisan galbeedka London. kama marno in barnaamijkana aan ku qaada dhigno Ole Gunnar Solskjaer oo ka soo jawaab celiyay hadalla xanaf leh oo ka soo yeeray laacibka horay lambarkiisa ugu soo xirtay Manchester United ee Robin van Persie. qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaadna ku daawan doontaa barnaamijkana inta uu hawada ka baxayo. ugu horeyn laagsar muuqaalkan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena. mahadsanid. halkani waa Tulito Channel. haryayga reer England ee Gary Lineker ahna daadihiya barnaamij ayaa shaaciyay qaabka kaliya ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ugu hor istaagi karo Liverpool ku guuleysiga horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska markii ugu horeysay muddo 30 sano ah kadib. Gary Lineker ayaana saadaaliyay inuu dhici doono dagaalka saddexaad ee adduunka kadib markii ciidamada Mareykanka jaranaal ka tirsan ciidanka Iran ee Qasim ay ku dileen dalka Iraq. kooxda Liverpool ayaa ku hogaaminaysa horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ilaa iyo 58 dhibcood toddobaadkii 21aad. waliba hal kulan ayaa baaqi u siya taasi oo sii cadaynaysa waxa ay ku tooran tahay xilli ciyaareedkan kooxda ka dhisan gobolka Merseyside oo dhinac kasteetaba loo saadaalinayo inay noqon karto horyaalnimada Premier League ee dalka England. Liverpool ayaa dhinaca kale wax guuldaro ah la kulmay xilli ciyaareedkan iyagoo badiyay 19 kulan hal kulanna barbara galay halka kulanka West Hamna uu baaqi u yahay. Liverpool ayaana ku dhow inay ku guuleysato horyaalka Premier League markii ugu horeysay tan iyo 1990 markaasi oo ay ahayd markii ugu dambeysay oo ay ku guuleysato horyaal laga ciyaaro cariga Ingiriiska. laakiin Gary Lineker ayaa boggiisa Twitterka wuxuu ku soo qoray in Trump khatar uu ku yahay ku guuleysiga Liverpool ee horyaalnimada Premier League dalka Ingiriiska uuna yahay qofka kaliya ee ka hor istaagi kara. waxay u muuqataa in Trump uu yahay qofka kaliya ee Liverpool ka hor istaagi kara ku guuleysiga Premier League. oo maxaa yeelay ma jirto saasaan kale oo ka hor istaagi karta in Liverpool ay noqoto xilli ciyaareedkan horyaalnimada cariga Ingiriiska oo ku socda hab kale oo xamaasad u leh kooxda ku ciyaarta caradii Anfield Road oo looga maaro waayay guud ahaan horyaalka Premier League. waliba hal sanadood ayaa la awoodi waayay in dhinacooda dhulka la dhigo. kooxda Bayern Munich iyadana waxa lagu soo waramayaa in xidiga difaaca ugu ciyaara ee Jerome Boateng ay lacag la'aan kaga iibinayso kooxda Arsenal sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya cariga Jarmalka. tababare Mikel Arteta ayaana doonaya inuu xoojiyo difaaca kooxdiisa kadib markii dhaawac halisa uu ka soo gaaray ciyaartii guusha weyn ay ka gaareen iyaga oo jooga Emirates Stadium. kooxda Manchester United difaaca RB Leipzig ee Dayot Upamecano ayaa bartilmaameedka ugu weyn u ahaa kooxda ka dhisan waqooyiga London laakiin qiimihiisa ayaa qaali ah oo gaaraya ilaa iyo 55 milyan ama 70 milyan oo euro. sidaasi oo ay tahayna maamulka Arsenal ayaa ku qasbanaaday in suuqa January ay raadiyaan difaac ka qiimo jaban
Upamecano waxaana ay u arkaan inuu yahay Jeremy Boateng. waxaa markii hore soo baxay war sheegayay in Bayern Munich ay kaga iibinayso adduun lacageed gaaraya 15 milyan oo euro, laakiin wargeyska Bild ayaa haatan waxa uu sheegaya in Bayern Munich ay diyaar u tahay in Jeremy Boateng lacag la'aan ay ku siiso, waa haddii Gunners ay diyaar u tahay inay bixiso mushaarka 31 jirkan. Jeremy Boateng oo horay uga soo ciyaaray Manchester City ayaa haatan kooxda Bayern Munich wuxuu kula jiraa heshiis gaaraya ilaa 2021 waxaana toddobaadkii mushaar ahaan uu u qaataa 230,000 oo gani. haddii ay diyaar u tahayna Arsenal inay bixiso qiimahaasi waa ay aqbali doontaa in weliba si bilaasha ay ku siiso kooxda ku ciyaarta Emirates Stadium, kooxda iska haysata Bundesliga dalka Jarmalka. tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa si degdeg ah ugu jawaabay hadal ka soo yeeray laacibkii hore ee kooxda Manchester United iyo Arsenal Robin van Persie, kaasi oo su'aal ka keenay shaqada tababaraha kooxda Manchester United. Van Persie ayaana kulankii Arsenal ee 2-1 lagu dubtay Manchester United fadhiyay telefishinka BT Sport, waxaana uu ahaa falanqeeyaha ciyaarta, waxaana uu sheegay in ay habboonaan lahayd in xoogaa cara ah laga dareemo wejiga Solskjaer maadaama ay kooxda guuldaro qaabishay, taasi beddelkeedana laga dheehan karay wejiga Ole farxad aad u weyn. waxaa kaloo Van Persie tilmaamay in loo baahan yahay in ciyaartooyda ay ka baqaan tababaraha haddii ay sameyn waayaan orad iyo kubad dhiibis, loogana baahan yahay inuu dul dhigo iqaab, laakiin taasi uusan ka arkaynin tababare Solskjaer, iyadoo si gaar ah tusaale uga soo qaatay bandhigii leetay ee labada ciyaartooy ee kala ah Fred iyo Nemanja Matic. hadalkan ayaa waxaa si degdeg ah ugu soo jawaabay Ole Gunnar Solskjaer oo sheegay dhinac kasteetaba in shakhsi ahaan uusan aqoonin Robin van Persie oo kaliya uu og yahay inuu yahay ciyaaryahan soo maray Manchester United horeyna u soo xirtay lambarkiisa 20aad, waxaana uu yiri Ole oo u jawaab celinayay Robin van Persie, aniga ma aqaano Robin, isagana ima lahan aqoon, xaqna uma lahan inuu dhaleeceeyo qaabka shaqadayda, mana badalayo. sidaasi waxaa yiri Ole Gunnar Solskjaer oo la hadlayay saxaafadda, waxaana intaasi uu sii raaciyay Van Persie waxa uu qaatay lambarkaygii 20aad oo aan u xiran jiray United, haddana waxaa laga yaabaa in uu doonayo inuu iga qaato shaqadayda, ayuu si dadban u tilmaamay macallim Ole Gunnar Solskjaer oo weerar rogaal celis ah ku qaaday laacibkii hore ee kooxaha Arsenal iyo Manchester United ee Robin van Persie. kubad sameeyaha kooxda Tottenham ee Christian Eriksen isagana wuxuu ku sii dhawaanayaa u dhaqaaqista kooxda Inter Milan inta lagu guda jiro isla suuqan January. kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga ayaana waqti xaadirka kan qayb ka soo noqotay loolanka baaxadda weyn ee lagu doonayo laacibkan reer Denmark ee horey loola xiriirinayay inuu aadi karo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kaasi oo qandaraaskiisa uu dhacayo marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. Inter Milan ayaana ku qaadanaysa Christian Eriksen qiimo jaban oo gaaraya 21 milyan oo gani, oo 27 jirkan ayaa qarka u saaran in si bilaasha uu isaga tago kooxda ka dhisan waqooyiga London haddii uu dhamaado xilli ciyaareedkan. taasi beddelkeedana macallim Jose Mourinho iyo maamulka kooxda Tottenham ayaa diyaar u ah in ay islaafiyaan Christian Eriksen oo aan ku faraxsanayn inuu sii joogo istaadiyaha Tottenham iyo waqooyiga London. Inter Milan ayaana u muuqata kooxda ugu dhow ee la wareegi karta isla suuqan January. kooxda ka dhisan galbeedka London ee Chelsea iyadana waxay hoggaanka ay u qabatay soo xirigelinta laacibka Crystal Palace ee Wilfried Zaha, sida ay qortay saakay jariirada Daily Mail, si uu ugu caawiyo injineerkan bixitaankiisa Palace ee Zaha waxa uu shaqaalaysiiyay wakiil cusub, kaasi oo la og yahay in xubno badan uu aad ugu xaalgaranayo xagga iyo qalcadda Stamford Bridge. taasina marka lagu daro rabitaanka Lampard waxa ay ku dhigan tahay in laacibkani garabka ka ciyaara suuqa January si weyn ay ugu caawinayso in uu ka mid noqdo kooxda Chelsea oo ah mid loolan iyo tartan adag ugu jirta sidii ay ku heli lahayd
ahayd tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Wilfried Zaha ayaana loo arkaa mid ka mid ah dooqyada ugu wanaagsan ee macallin Frank Lampard, wax badanna ka bedeli kara kooxda Chelsea oo xayiraad ay ka saarnayd xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda suuqii dhowaa. Laakiin haatan xayiraadaasi laga qaaday ciyaartooy dhowr ahna ka baadi goobaysa marka la eego qaaradda Yurub. guux kale oo aad u weyn ayaa ka taagan waqti xaadirka kan xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, kaasi oo noqonaya saxiixa Dani Olmo oo noqday mid saameyn xoogan ku yeeshay qaaradda Yurub. Ernesto Valverde ayaana waqti xaadirka kan qirtay inuu aad u jecel yahay Dani Olmo, iyadoona Barcelona weli ay xiisaynayso saxiixa la aaminsan yahay in lacagaha badan uu kallifi karo isla markaana garabka ugu ciyaara kooxda Dinamo Zagreb. xidigani reer Spain ayaa cadeeyay inuu raadinayo inuu ka tago kooxda reer Croatia weliba sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo kooxo badan oo Yurubna lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo 21 jirkan oo qiibi ay ka tahay Chelsea oo waqti xaadirka kan aaminsan inay bixin karto qiimaha lagu heli karo xidiga reer Spain. Dani Olmo waxa uu ku soo bilowday mustaqbalkiisa dhalinyarada ee kubadda cagta akademiyada Barcelona ee La Masia, isagoo 16 jir ah ayuuna si la yaab leh ugu wareegay kooxda Dinamo, laakiin kooxdii uu ka soo caraabay ee ka dhisan gobolka Catalonia caruurnimadiisii ayaa waqti xaadirka kan diyaar u ah in qarashaad badan ay ku fardhiso si ay ula soo wareegto laacibkan da'da yar qaab ciyareedka cajaabada leh la soo baxay. guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah.